saan aan ku jirno tala ma ahan sharif waa inaan wacaninkii farmaajo ahaa oo runta u sheegaa okay wax una sheeg asiga iyo awees baafow inay yihiin laba muwaadin oo dalka u siman ambarkani wuxuu kula wadaagi doonaa haraagaaga haddii aad ogoshahay riix hal haddii kale riix labo halow mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxa kula hadlayo waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxaan kuu sheegayaa adiga iyo dabacsar saacadan laga bilaabo inaad tihiin laba muwaadin oo dalka u siman hawiyow habartiina u siman wadankan waxaa ka dhigteen wadan qof kasta iska maamuli karo sida koobkii qaramada qaaradda Afrika anigoo ah maxamed cabdullaahi farmaajo anigoo og mas'uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd inaan dalka ku gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay ee dadbanaa ee 2016 yaa waaye waxa firimbiga yeerinayo meeshaan markaa firimbiga ku yeerinaysaan ma meel arday farqurxun lagu baraa mise waa tartan nag awd ah mudane madaxweyne wax kale firimbiga ma kuugu yeerin ee waxaan la dhashay xildhibaankii firimbiga waraayo maanta maxaad fikiraysaa saaxiib waxa igu soo socoto 14 Febraayo waana maalinta jaceelka adduunka waxaana ka fikirooyaa hadii aan u geey lahaa jaceelkayga saaxiib adi anaaba ka daran oo maxaa dhacay saaxiib waxaan sugi lahaa 8 Febraayo waa maalinta kaliya aan farmaajo aan seem naqleen saaxiib adi anaaba kaasii daran marka adiga iyo farmaajo saymis noqotiin waxaa ii qorshaysan inaan qabsado 6 boos oo madaxtooyada ku agtaalo عاتونا كان صاحب بايا نهي سيم غايدادينا هاي صاحب يو نبض bangin since me youngin عاوك بليري مقايدة وايكن محايد السيا محايا لما قايد اول عنا مقايد وابريسي باستي دلوندي iyo federation iyo finto warninka hadoo basaan u yaala cuntiisa naga gartaa waxaas ka baxa ee quruxdu waa qalbiga ee maxaa idin keena okay waxaad ii keentaa labada lugo hore doorada iyo haaf xaniyo duka ayonka ninka xaq u jira askiyay ku dilile waa u jeeda saaxiibay adin iska ilaali bangin since me youngin waryaada teleefanada keena hadii kale indhiga waa kiisin caato bal naga sii teleefanada saaxiib iyo nagu dilnay ninkii la qab yo baxsan caato waa qabanay adilna madax ugu istaag madaxa caato ninka jaaga cusiyo caato waraam waalanta markaa meesha magaciisa ku sheegay lacag ma loo qabanayaa matuuga ku dilona anoo tuug dilayo inta magaciisa ugu cilaad inaa xamd bilna ugu cadaay garoon saaxiibkeeyo ii waran maanta saaxiib seeta waa fiicanahay saaxiib ee aaway arooskan kugu ogaa Soomaalidan aroosin maya saaxiib ma aroosin arooskaas waxa dhahay tush xalaala ee maxaa dhacay saaxiib maxaa aroos weysay saaxiib naagti aan jecelahay waxay ugu xujeysay $8,000 anigana ma awoodo wah taas ma dib lehna tolkaada gal ee lacagta weydii saaxiib tolkayga waan ka warqabaa $2 bar xataa iima awoodaan saaxiib xalan taas ani kuma hayo markaanoo kale ee ku qabanay diiq maxad u ahaaweys sababtoo ah diiqa naag ma waayo soo arko iska gashtaa